الله. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن شاء الله تعالى كلمات بين سرندنا كصاب سيسن حفظ الدين، أما قفك مسلم كاهين ودين تسائل شبه، لأن عند المسلمين أغلى ما عندنا هو الدين. nolosha wax u qaalisan aynu haysanaa waa diin. naftayada ka qaalisan, maalkayada ka qaalisan, caqligayada ka qaalisan, waxa bini aadamku hanto diin baa ugu qaalisan. waana nicma ilaahay uuna leeyahay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii. waxaan idin dhammaystiray baa ilaahay leeyahay subxaana wa taala, waxaan idin kaamil yeelay diintiinnii, waxaan kaloo idin dhammaystiray baa ilaahay leeyahay nicmadaydii. waa nicma min akbari nicam. musiibo ama dhibaato qofka bini aadamka ku dhacana waxa ugu weyn musiibada diinta ka gashay. musiibada diintuna waxa weeyaan iimaan dabadeed inaad gaalnimo u baxdo, ama طاacad dabadeed inaad cisyaan u baxdo, ama hanuun dabadeed inaad dalaal iyo baadinimo u baxdo, ama diin dabadeed inaad diin la-aan u baxdid. musiibo kasta ama mushkilo kasta oo qofka haleeshana way ka fududahay musiibada qofka diinta kaga dhacda. waayo qofku hadduu diinta dhibtu kaga dhacdo waa wixii ugu qaalisanaaye u haystay. sida awgeed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa dadka saalixiinta iyo awliyadiisa iyo dadka rabbi yaqaana iyo cibaadullahi saalixiin dacooyinkooda ugu fiican inuu ka mid yahay inay ahayd rabbanaa laa tusi quluubanaa bacda id hadaytanaa. ilaahay qalbiyadayada ha weecinin waanan baadinnimo dib ugu noqonin intaanu hanoonnay kadib. wahab lanaa min ladunka raxma innaka anta alwahaab. waxaana ka mid ahaa baryadii nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu odhan jiray allahuma laa tajcal musiibatana fii diinina walaa tajcal iddunya akbara hamina walaa mablaga cilmina. ilaahayow musiibadayada iyo imtixaankayaga diinta yuu nagaga dhicin. wuxuu kaloo nabigu lahaa ilaahow adduunka ha ka dhigin waxa ugu weyn aanu ka fakarno, ama hamiga iyaga ugu weyn adduunye ha ka dhigin buu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. ayuha alaxiba, waxay culimmadu markaa yidhaahdaan musiibo kastoo qofka ku dhacda waa fududdahay marka loo eego musiibada diinta ku dhacda. diinta hadday dhibi kaa soo gaadho walciyaadu billah waxay ku geynaysaa waa naar. laakiin masaa'ibta kaleo dhan waa laga kaban karaa, waa wax fudud. ilaahayna qur-aanka wuxuu ku leeyay qul ina alkhaasiriina aladiina khasiruu anfusahum waahlihim yowma alqiyaama alaa dalika huwa alkhusraanu almubiin lahum min fawqihim dulalu min annaar wa min taxtihim dulal. ilaahay wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala, nebi maxamedow waxaad ku tidhaahdaa dadka kuwa khasaaray, bini aadam khasaaray un haddii la sheegayo, kuwa khasaaray waa kuwa maalinta qiyaame naf iyo helba khasaare baa ilaahay yidhi. alaa dalika huwa alkhusraanu almubiin. kaas uunbaa ah baa ilaahay yidhi khasaaraha cad. waayo kuwa kor iyo hoosba naar baa ka xigi doonta. maadaama ay diintu sidaa tahay, ilaahay taariikhdii dadkii hore muslimiinta ahaa buu inoo soo raray. waxaa la inoo soo tilmaamo nebiga looga warramay calayhi salaatu wasalaam ummadii hore markay mushkiladdu diinta noqoto siday wax walba u dhaafsanayeen, naf iyo maalba u siisanayeen. waxaa kaloo ilaahay inooga warramay ambiyooyin iyana sidan oo kale ku dhacday. waxaa kaloo taariikhda iyo siiraduna in badan inooga warramaysaa saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo mawaaqifta istaagayeen marka diinta dhibi ka gaadho.
tusaale ahaan ilaahay wuxuu ka warramaya subxaanahu wa tacaala qur-aanka qisas tiro badan leh oo ay ka mid tahay matalan qisatu asxaabi ilkahf ay ka mid tahay matalan qisatu asxaabi lukhuduud ay ka mid tahay saxaratu fircawn uu ka mid yahay nebiyullaahi yuusuf iyo qisadiisii waxaasoo qisi waxay tilmaamayaan mashkiladdiiyo dhibta adduunyo inay dadkaasi xamileen oo qaateen si ay uga badbaadaan dhib diintooda ku dhacda waa dad saalixiina waa dad awliyaa waa dad rusula intaba ilaahay wuxuu tilmaamayaa tusaalayaal kooban haddaan ka bixiyo nebiyullaahi yuusuf waxaa la kala dooransiiyey inuu gabadhii boqorka xaaskiisii inuu la tunto gabadh la yidhaahdo waa qurux badni oo iyadu soo doonatoo hunguraysay oo islaamihii kale ama dumarkii kale joogayna ka dhaadhicisay arrinkan inuu arrin fiican yahay oo lagu wada waafaqay ayay waxay tidhi waxa aan u amrayo hadduu yeeli waayo waa la xidhayaa bay tidhi marka muxuu kala dooranayaa inuu tunto oo ciliyat ilqowm la tunto waxaa laga yaabaa meelahan fitnada joogtaa discotek qolyo cidle ay joogaan inay galaan halkan ninkan waxaa la kala dooransiinayaa guriga boqortooyada dumarkii joogay inuu la tunto iyo badiilku waa maxay inuu xabsi galo weliba xabsigu waa kee waa xabsi boqortooyo oo ma laha tiro go-an xabsi maaha la leeyahay sanad baa lagu xidhayo labaa lagu xidhayo maaha waa xabsi inta lagugu rido aan cidi kaaga soo daba juuqayn in lagugu ilaabayo nebi yuusuf labadaasuu doorashadooda ku jira miyuu iska tuntaa mise ilaahay buu ka cabsadaayo xabsiguu gala ilaahay baa wuxuu inoo soo guuriyey nebi yuusuf wixii uu yidhi rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh wuxuu leeyahy ilaahayow xabsiga ayaa aniga agtayda lagaga kalgacal badan yahay waxay kuwan iigu yeedhayaan wailaa tasrif canii kaydahunna asbu ilayhinna waaku min aljaahiliin ilaahu duulka ay dhaafi buu leeyahy haddaanad adigu iga qabanin dhagartooda iyo makrigooda waa ku dhacayaaye ilaahayna wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala fastajaaba lah ilaahay waa ka aqbalay fastajaaba lahu rabbu fasarafa canhu kaydahunna innahu huwa asamiicu alcaliim ilaahay waa ka aqbalay dumarkaana dhagartoodii iyo kaydkoodii iyo khiyaanadoodii ilaahay waa dhaafiyey laakiin maxaa laga aqbalay inuu dee xabsiga galo zinadii baa laga badbaadiyey oo wuxuu galay maxay xabsuu galay ayuha alxiba markaa si diintiisu u badbaado xabsi aan la garanayn goorta laga soo bixi doono iyo xabsiga dhibtiisa oo weliba dhuluu qariib ku yahay ah waddan aanu dadkiisa aqoonina xabsigaa inuu galo wuxuu ka doorbiday naciimu dunya dunida dhaldhalaalkeedii iyo quruxdeedii iyo tumashadeedii buu ka doorbiday isagoo raba in diintiisu u badbaado waxaa kaloo ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamaya asxaabulkahf niman dhallinyaro ah way mufasiriintu yidhaahdeen waxay ahaayeen madaxda dhashoodii oo dabeetana dadka diinta ugu yeedhay oo diintii laga aqbali waayey oo ka doortay guryihii iyo qusuurtii ay ku noolaayeen inay god ku noolaadaan oo god galaan waa bayna alqasri waalkahf waxaa la kala dooranaya god buur ku yaalla inaad degto iyo inaad guryaha boqortooyada joogto ilaahay wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala id awa alfityatu ila alkahfi faqaaluu rabbana aatinaa min ladunka raxma wahayi' lanaa min amrina rashada ilaahay markaa wuxuu leeyay asxaabulkahf qalbigan u adkeeyey baa ilaahay leeyay warabatnaa calaa quluubihim waayo imtixaan weyn imtixaana adduunkaad haysato o dhan inaad ka baxdiyo noloshii macmacaankeed oo dhan oo dabad lagu tuuro aada god naf biddo inaad degto
إلهي وحلي وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا قلبي قال أحجي يا إلهي سبحانه وتعالى مركي أنت كعين أي لهدنا نجا إلهي ومبان ربيه عدان الله هينو أنو برينا مسي عابدينا ما جرتو مالك لهدان وعنا والله بيت المامية قصص صدحات با إلهي قرآن كقور رمية قصدتنا وأصحاب الخدود وسورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وإلهي قصده كقور رمية ننبقرة وننسح الرولا هيستي وسحروليه جبوبي أيه وحو سحروليه كيري ورينا يرى عقل بدن كنسو وأن علمك السحر ككوبره ودبتنا بغرطوية السحر كوهيا ويل دل يرى وعقل بدن بالله كان ويل كسووتا كانك السحرولا وحبو كبرته meeshan dhexe uu sii maray markuu gurigooda ka baxay uu ku socdo ninka sixroolaa wadaad baa degan raahiba wadaadkii buu la yara fadhiistay wadaadkiina waa wacdiyey inankan yar markaa laba cilma ku wada socda cilmi ilaahay ka gaalaysiinaya iyo cilmi maxay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku rumaynayo oo diina wadaadku nin cilmi fiican buu hayo ninkan yar si wanaagsan buu ugu dadaalay inuu ilaahay abuuray ku xidho wiilkii yara dhexduu sidii labadiibu u kala socdaa reerkii waa maageen markii dambe أخيرا قصة إنه كوبينا إنه محل شاهدكم إنه تجينا ويلكي يرى مالتي دمبه بحال باصور رأي مقالة دي دبتنا أنتو رجحات وحول إلهيو هدي وداد كا يوحو شيغا ياكتاد لغا عيل بدي سحر لها يوحو شيغيو إلا ودغخا كدل بويري بحالكا بحالكي بو دغخي كتوري لباح بوها يوحبا الله شيغا على كل حال إلهي وادلي المهي يرى مركا وحو نقضي نين إلهي يقانا وكرامة له dadku yimaado uu duceeyo ilaahay uu caafimaadiya boqorka xaashidiisii nin kamid ah wasiirada iyo kuwa boqorada ag jooga madaxda mid kamid ah indha beelay dabeetana wiilkii yaraa buu yimo wuxuu yidhi lacagtaana waan kuu sidaa waxaan maqlay dadka inaad caafimaadisee indhahaygii dib igu soo celi wuxuu yidhi anigu cidna ma caafimaadiya ilaahay baa wax caafimaadiya haddaad isaga rumayso ilaahay haddaad rumayso anna ilaahay baan kuu baryi inuu ilaahay indhaha kuu soo celiyo ninkii diintii buu qaatay wiilkiina ilaahay buu u bariyey dabeetana ninkii baa indhihii u soo noqday ninkii oo indha qaba ayaa boqorkii u tegey boqorkii wuxuu yidhi waar xaggaa tagtay ma indhihii maxaad ku soo dawaysatay rabbigay baa ii caafimaadiyey buu yidhi awalaka rabbun hayri buu yidhi ma cidaan aniga ahaynba kuu rabbiya ninkaani dadkaba rabbinimo u sheeganayay hayo aniga iyo adigaba ilaahay baa noo rabbiya buu yidhi ninkii baa la toorjargareeyey والله يدي شاك عدة واحد بوك لفتي ويل كيبو شاك ويل كيبا لا تورشر قري السنة ودات كيبو شاك سد حدودي بالله صوغبت ودات كيبا لي مكان نغنيسا ما يبو يردين تايدا وحبا دافسن مايو ولا دلي نين كيبا لي مكان نغنيسا ما يبو يري سنة ولا دلي ويل كرجنا والله قبها ودي علبي سحر كسكا برتي dhibna waa wadaayo ilaahay buu rumeeyey oo wadadii uu ka weecday marka waxa la yidhi kaxeeyo oo inta ciidan lagu daray buurta xaggeeda sare saaro markuu arko meesha laga dhacayo waxa tidhaahdaa halka ma kaa tuura mise waad ka noqonaysaa wixii meeshii baa la geeyey waxa la yidhi halkaa miyaanu kaa tuuraa mise wixii baad ka noqonaysaa kan noqon maayo wuxuu ilaahay buu bariyo ilaahu kuwan igaga filow buu yidhi buurtii un baaba gilgilato dhul gariir baa ka dhacayo iyagii baa ka daatay muu baxsane uu soo noqday waa u yimid meeye nimankii waxa la yidhi waa saasaa ku dhacday doon buu saaray qolo kale ku daray wuxuu yidhi badda dhexdeeda geeya waxaa ku tidhaahdaan ma ka noqonaysaa wixii mise baddaasaanu ku dhignaa meeshii markii la geeyo ilaahay baryay haddana iyagii baa ilaahay ka daadiyey dabeetana wuu soo noqday ninkii boqorkaa markii dambe wuxuu ku yidhi wax makuu sheegaa magaaladiina horta ilaahay baa rumaysa ninkii boqorkaa wuxuu yidhi wax makuu sheegaa ma rabtaa inaad ii disho sida qura aad ii dili karta waa mid buu yidhi waa in aad aniga kanaanadayda baashan lagu gurto gabuunada leebabka aniga intaad leeb meeshayda kala baxdo inaad tidhaahdo bismi illaahi rabbi lghulaam
inaad magaca ilaahay qabsato wiilkan yar rabbiga u ah markaa unbaad idili kartaa buu ku yidhi dadkoo dhanna soo xaadiriyo meel isugu keen sidaa yeel boqorkii wuxuu is yidhi waaba farsamo hadduu kaa dhimanayo unkan iyo ku dhaafayo magaaladii oo dhan baa la isugu yeedhay dabeetana wiilkiiba halkan lagu xidhay bahashii gammuunkii buu kala baxay dabeetana bismi illah buu yidhi ilaahay magaciisu u qabto wuu ku garay halkay kaga dhacday inankii wuu geeriyooday dadkii magaalada deganaa waxay idhahdeen mar haddii inankaba aan la dili karin ilaahay magaciisa loo qabta mooyaane annana ilaahay baanu rumaynay baa la yidhi wuxuu ka cararayay waxay ahayd mid iyo laba iyo saddex ilaahay rumeeyey laakiin marka kan magaaladii oo dhan baa maxay ilaahay rumaysay magaaladii oo dhan buu yidhi god ha loo qodo god baa la qoday dab baa lagu shiday waa isa soo agtaageen kolba gurub baa lasoo qabtaa ma ka noqonaysaa may ku guro dabka dadka sidii dabka loogu gurayey ayaa markii dambe waxaa timi qof dumar ah oo ilmo yar sidata markay dabkii aragtay isa soo dul taagtay bay ilmihii u naxday dabeetana way isa soo geejisay ilaahay ilmihii yaraa buu ka hadliyo wuxuu leeyahay ummaa isbirii fa innaki cala alxaq hooya sabir xaq baad ku taagantahay buu yidhi iyadiina waa la gubay ilaahay qur-aanku qisadii dadkan ku qoray سورة الإله سورة البروج قصة بك والرميسة والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود كويله إليه والله نعذلي كويدتك قدتك وقضي النار ذات الوقود كويدتك دبك كوكوريي والله نعذلي إله إليه سبحانه وتعالى إذا ضدك كاني راهب كي هالنغضو نينكي مدحدا هاي بقرك كاكنا وهالنغضو wiilkii ha noqdo dadweynaha ha noqdo maxay kala doorteen in la gubo oo ay iimaan ku dhintaan iyo inay diinta ka noqdaan bay kala doorteen waxay doorteen markaa iimaankooda ay ku dhintaan oo ku adkaystaan walow hana la gube inay tahay sida saxda ah ilaahay wuxuu kaloo qur-aanka inoogaga warramaya nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo fircawn markii dooduu dhex maray waa kuwii faraacinadu yidhi waxaanaad wadataa waa sixir waa inoo maalin heblaayo dadkao dhanna ha la soo xaadiriyo waxaa lagu heshiiyey sixiroolayaasha waddankao dhan in laysu keeno dadkao dhanna in goob laysugu yeedho markaa sixiroolayaashu inay sixirkooda soo bandhigaan oo caddeeyaan nebi muuse ushiisan iyo waxa kan inayana sixir u yihiin markii goobtii laysugu yimid waxay ku yidhaahdeen ninkii madaxda ahaayeen aina lana la ajran in kunna naxnu lghaalibiin abaal mar ma leenahay ma mushkhaayad ma jawaa'is ma leenahay bay leeyihin haddaanu ka xoog badanana muuse nacam buu ku yidhi waa leediin muqarabiintaaba ku biiraysaan kuwa dowladda xagga sare u dhow ayaa ka mid noqonaysaan baa lagu yidhi sidii bay kusoo talagaleen sixirkoodii iyo wixii bay sameeyeen سحر عظيم بيسمى ينادوا وين إلهي سبحانه وتعالى النبي موسى وحليله أشو ندو طور أشي بطوري بحل با إلهي كردغي دبتنا وحي اللقضي وحي أي سمايا نرد كدب النبي موسى ليله أشي قبو دبو وقبطي أشي سيبا دبو النغط مركا وحي السحر رالي أشعر لنا إلهي وحكو بري نبي موسى أشي سي فرعون markii ay arkeen nimankii saxarada ahaa waxay garteen muuse wuxuu wadaa inuu xaq yahay nebi iyo rasuul ilaahay soo diray inuu yahay inaan wixiisana sixir hayn bay fahmeen ila sixirka iyaga khubaro ku ah marka waxay garteen tani inaanay sixir hayn muuse wado dabeetana ilaahay bay rumeeyeen fircawn waa ka xanaaqa wuxuu yidhi ma inta aan idin fasixin baa idinku ilaahay iska rumayseen muuse sheegayay لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين بيقول gacmaha iyo adimada talantaali idin gooye oo cross idinku dilay buu yiri intaan idin saaro qaaluu waxay u jawaabeen hadeer maxay lahaayeen ajar ma leenay marka kay diinta fahmeen diinta waxay dhaafsisanayaan ma jirto waxa la leeyahay waa la idin laynaya waa la idin waliba caadi la idin dilmaayo waa la idin googoynaya idinkoo nool oo waa la idin cross baa la idin saaraya laakiin waxay ku yiraahdeen
laa dayra innaa ilaa rabbina munqalibuun dhibi ma jirta bay yidhaahdeen haddaadna disho ilaahay un baanu u noqonaynaa bay yidhaahdeen innaa natmacu an yakfira lana rabbuna khataayaana an kunnaa awala almu'miniin bay yidhahdeen waxaabaanu rajaynaynaa haddaadna disho oo hunguri naga haya ilaahay inuu dembigayagii hore dhaafo inaanu ahayn mu'miniinta kuwii ugu horreeyey daraaddeed ninkiina waa laayay fircawna saxaradii wuu laayay qasaska aynu soo sheegaynaa nolol diin la-aani la socoto oo weliba laga yaabo guryo boqortooyo meelo madaxi lagu noolaanayo iyo dhimasho diini la socotay kala dooranayeen waxay wada doorteen oo ilaahay inooga warramayaa diintooda inay u dhintaan ayuha alaxiba marka diintu qiimaha intaa leeg bay joogtaa ma aha wax fudud oo qofku uu cidlo kaga tago diintu wax kastoo aada haysato waa waxa ugu qiimaha badan leh sidaa awgeed haysashadeeduna waxay u baahan tahay aqoon iyo ku dhaqan iyo iskaashi iyo isku xidhnaan ayay u baahan tahay fitnada iyo imtixaanka meelahay ka jiraanna waa laga durkaa ma jiro qof odhanaya anigaa isku filan oo intaan mashaakil oo dhan dhex galaabaan haddana diintaydu xoog bay ahaanaysaa maanaa diintaydu wax noqotaa waa iska sheeko gaaban sida awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa kuwaa cagsigooda mid ah oo diintiisii shiliba siistay qoladani diinta naftooday siisteena way u dhimanayeen mid isagu diintii iskaga tegay oo waxoogaa helay ilaahay wuxuu leeyay watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha waxaad dadka kaloo ku akhridaa baa ilaahay leeyay nebi maxamedow kii aanu aayaadka iyaga siinay diinta fahmay dabeetana fansalakh ka siibtay ka baxay oo fa atbacahu shaytaan shaydaanku raacay فكان من الغاوين بايلهيدي كوا باضيدا أبو كبير غاوي جوا حلا ينهدا باي علماء دو ينهدا قف كيسقو حقا قرنا يهدا ندين عبارة وقرنا ين دين تيجي الإسلام نمط الصح هاي لكن ثم شدي سيا بالودي سيا وحيسو كدور بدايا شقو جينا حق تهاي بدين عمرة إلى يقول ولو شينا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون إلهي وحلي هدان الضونة كان دين تانو كوريالي لهين لكن سقع شعلادين ونقولك اسكن به ونفتي سواحد دون الراعي كان يوحو لمدي هبا إلهي إيجا بني آدم نمدي وكسر دعوة حلقوا قياسا يا محي أيقو محو عان كوي أيقو مركز تا وحياة يدو لهذا مركز تا حراريودا حراريودا متغاني يعني عربكو مركز تا الله ديا حولها هي حيوان هذا كله مركز اللي إريا أما يهرادان أما دبي قبضتي عربك الله ديا لكن مركز كله أيسكن معيسين وحمام الله ديا أيقول لكن سوى دركسب عربك الله ديا هدا يريدنا عرب كل الله دين هدوس كفرديو عرب كل الله دين إلهي وحلي كان كمثل الكلب وسيد أيقو كله إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث هدا يريدنا عرب كل الله دين هدا سكد يسنا عرب كل الله دين بإلهي ليه وحلو قلت الماما يا من كان إنه دين قرنا إنه دين قرنا وابا يسقومت إنه فهمي دينتو إنه حق تاعي إيه أنا قرن واسقو مدوايا لبض قربه وكتجي كاني سادر هديت بإلهي وحلي كاسوات صالح كو إلهي آيات كيس بيني فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ضدك وقور بإلهي شيكوين كان النبي محمد أو أشك وحي مدين إنه يفكران بإلهي قصص كقرآن وحي وصارورين إنه يفكرنا قصص كقرآن وحي إلهي إنه شيء اعتبار إنه وحقوق هذا النوع سادر هديت أي إلهي سبحانه وتعالى ساسي كتل مامي وحكى له قرآن كإلهي كتل مامي
dadku marka ay xaqa ka tegayaan ee diinta ka tegayaan qaar kutubtii iyo diintii sida laakiin aan ku dhaqmaynin waa yuhuud baa ilaahay ku tilmaamay mathalu aladiina xumiluu tawraat uma lam yaxmiluuha kamathali alximaari yaxmilu asfaara baa ilaahay kuwii towraad loo xambaariyey lagu kalifay ee dabeetana xambaari waaye iskaga tegey waxay la mid yihiin baa ilaahay yidhi dameer kutub lagu raray dameerka haddii kutub lagu raro muxuu dareemaa culayskuunde faa'iido kale miyuu ku qabaa may culaysuunbuu sidaa laakiin faa'iido kuma qabo waxaa la mida qof kastoo diinta garanayo aan ku dhaqmaynin wakhtuunbaad ku bixisay xuji unbaad isku oogtay aakhiro adunbaa isku markhaati furay laakiin kumay anficin oo muu noqonin diinkaad garatay waxaad ku dhaqmaysa baa ilaahay tilmaamaya subxaanahu wa tacaala bi'sa mathalu lqowmi aladiina kadabuu biaayaati illaahi wallahu laa yahdi alqowma alظaalimiin waxaa xumaaday baa ilaahay yidhi tusaalaha kuwii ilaahay aayaadkiisa beeniyey ayuha alaxiba diintu markaa raganimay u baahan tahay iyo qofku inuu ku dadaalo oo wixiisa u xejisto qur-aanka ilaahay wuxuu nagu rabay kuwo xejistay oo jannooyin heliya ilaahay raalli ahaanshihiisa iyo wanaag iyo kuwo tuuray oo ilaahay cadhadiisa iyo cadaabkiisa helay waxaa kaloo qur-aanku inoo sheegayaa shayطaankabaa hadafkiisa ugu weyn taargetkiisa ugu weyn goolka ugu weyn uu rabo inuu gaadhaa inay tahay inuu diinta ku dhaafiyo ama shayaaiin اlinsi ha noqdaan ama shayaaiin اljinni ha noqdaan dadka xunxun oo dhami waa inay diinta kaa saaraan ilaahay wuxuu leeyahy walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istaطaacuu kama zuulayaan baa ilahay kama joogsanayaan dagaalka idinla dagaalamayaan dayn maayaan baa ilahay in ay diinta idinka saaraan mooyaane haddii ay awoodaan dagaalkooda goormuu dhammaanaya marka diin la-aan u baxda baa ilaahay yidhi inta aad diin waxun ka haysato ku dayn maayaan baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala markaasaa ilaahay haddana wuxuu yidhi waman yartadid minkum can diini fayamut wahuwa kaafir qofkii diinta markaa ka noqda iyagu saasay ku dadaalayaan haddaba idinka ninkii diintiisa ka noqda ee naf geeridu u timaado isagoo kaafira fa ulaa'ika xabitat acmaaluhum fi dunya waalaakhira kuwaas baa ilaahay yidhi acmaashoodii wanaagsanayd adduun iyo aakhiraba way gurtay wa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun waana kuwa naarta ku waari doona ayuha alaxiba waxaad joogtaan markaa dhul ama meel ay yidhaahdaan waa mutacadid aladyaani waاthaqaafaat dunida bulshooyinka ku nool bulshooyinka qaarkood one culture bay haystaan diin quray haystaan bulshooyinka qaarkoodna waa multicultural diimo badan dhaqamo badan dadyow badan oo kale nooca isugu yimaada aakhiru zamaankana fitanka iyo imtixaanku way tiro badan doonaan saa daraaddeed buu nebigu wuxuu yidhi war acmaasha wanaagsan u degdega oo ku dadaala inta aanay idinku imanin imtixaanaad iyo fitan sida habeenka mugdigiisoo kale ah oo maxaa imtixaanaadkaasi samaynaya nin baa waa bariirsanaya buu nebigu yihi isagoo mu'mina galabaysanaya haddana isagoo gaala laga yaabo inuu galabaysto isagoo mu'mina waa baryaya haddana isagoo gaala gaalnimada iyo islaamnimadu u kala socdaa kolba mid buu qaadanaya maxaa sida tan u galay nebigu wuxuu leeyay yabiicu diinahu bicaradin min addunya diintiisi wuxuu siisanayaa in yar oo adduunyo ah buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam salaaddii cidhiidhay garsho dee shaqadaad dhaafsatay shaqadaa ka fiican gaal baad soo dhex degtoo diin la-aan buu carruurta kaa biday markaasaa tidhi biilkaa laga helaya xagga kale biil laga heli maayo waa uun waxoogaa lacag ah waxoogaa adduunyo ah weeyaan waxa aad dhaafsanaysaa diintaadii si kastaba ha u taaleen nebiyullaahi moxamedna calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisii waxaa ka mid ahaa allaahuma musarifa alquluub
صرف قلوبنا على طاعتك إله قلبك بن آدم كقد قديو إله قلبي يضا يضا طاعة هذا كو قدي أما كسك
أيها الأحبة meeshana joogtaan markaa ma dhulkan gaalada la yimid mushkilad bayna keentay laakiin maynan iman dhul bilaa mushkiladee waxaynu nimid dhul mushkiladiina keentay mid ka sii weyn ay taallo dadka inta badan ama mushkilad nabadgelyo darro ama dhaqaale xumo mid bayna keentay meelaynu ka nimi ama waxaynu ka cabanaynay inay jirto amni la-aan dagaalla iyo rabshadaa ka dhacay ama waxaynu ka cabanaynay dhaqaale xumo labadaa mushkiladood baynu ka soo cararna laakiin waxaynu nimi meel ay taallo mushkilad kale oo aan labadii ahayn mushkiladaa diin la-aan baynu soo gallay meel aad waxaad luminaysaa uu yahay ubadkaagii dadkaagii adiga laftaadii oo diintii uu ka sii siibmayo waajibaadka bay culimmadu yidhaahdaan markaa qofka muslimka ee muqtaribka ah qofka muslimka ee dhul aan dhulkiisii ahayn degay dad aan dadkiisii ahayn la degay ummad diin ahaan ay kala gedisan yihiin la degan maxaa laga rabaa waxay yidhaahdaan 5 shay baa asala in laga rabo kow naftiisa iyo diintiisa inuu isagu ilaashan karo isagu lafihiisa inuu dhowran karo diintiisa iyo shaacirtiisana muujisan karo laba qoyska iyo reerka uu mas-uulka ka yahayna inay milmaan oo dadka ku darsamaan inuu ka ceshan karo ilaashan karo saddex dadyawa kale muslimiinta ah ee meeshuu joogo la joogo inay isgargaarsadaan oo isku gargaarsadaan qof quri wax iskama celin karo inay wax wada dhowrtaan afar mujtamaca aan muslimka ahayn ee uu la nool yahay inuu mas-uuliyaddii diingaadhsiinta qaadi karo uu nebi maxamed u geeriyooday calayhi salaatu wasalaam dunidoo dhan baana loo soo diray dunidiina mu wada gaadhine in yar buu isagu ka arkay saxaabaduu faray wixii alle u soo dhiibo uu maalin xajeedoo ciideedoo la wada joogo leeyahay war ma idi soo gaadhsiiyey wixii ilaahay ii soo dhiiba ay leeyihiin haa uu leeya ilaahu markhaati iga noqo balliquu canii walow aaya baanuu yidhi hal aayadna ha noqotee dadka iga gaadhsiiya inagu xilkaasiina fuulay qof kastoo muslima ayuu xilkaasi fuulay idan dadkaynu la noole kale inaynu diinta gaadhsiin karno qodobka shanaad bay idhaahdaan dhibta muslimiinta kale ee dunida joogta haysata ama dhulalkaynu ka nimiyo wixii la mid ahaa inaynu ka fakarno saynu u islaaxin lahayn ama wax uga geysan lahayn ayuha alaxiba meeshan aynu nimi marka waa meel imtixaanada yaalla ay tiro badan yihiin muqriyaadka ama shahwaati nafsiga waxa dadka lumiye ee yaallaana ay tiro badan yihiin ha noqoto shubahaat ama shahawaat waxa dadka lumiyaabaa la yidhaahdaa ama waa shubha diintiisa lagaga furo oo qofku markuu waddankiisa joogo diintiisa haysto wax diintiisa ka shaki geliya ma arki jirin laakiin halkan markuu joogo dee intaasoo diimeed iyo diinlaawayaalba waa wada kulmaysaa dood iyo muranku waa badanaya haddii aanad qof dhisan ahayn markaa oo iimaankiisu aanu cilmi ku fadhinin caqiidadiisu aanay cilmi ku fadhinin diintiisa aan fahamsanayn haddaad tahay si fudud baa lagu luminaya si fudud baad baadalka u aqbalaysa haddii taa aad ka badbaadana shahwaatu nafsigii baa yaalla xumihii kaloo dhan baa yaalla hadday tahay naag qaawa hadday tahay adduunyo hadday tahay khamro hadday tahay balwad hadday tahay boodbood hadday tahay filim hadday tahay wixii kale shahwaatu nafsiga oo dhan ayaa yaalla dhulkan in diin lagu haystaa ma fududa in dadaal iyo xoog iyo caqli la geliyo mooyaane sida awgeed buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam dadka wakti baa ku iman doona qofka diintiisa ku dhegani uu la mid yahay qof dhuxul daba haystoo kale dhuxul daba intaad hayn kartaa ma fududa taa macnaheedu waxa weeyaan
إلهي قرآنك وحقول إن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله dadkan intooda badan haddaad adeecdo ilaahay jidkiisa waa kaa luminaya baa ilaahay leh wamaa akharu nnaasi walow xarasta bimu'miniin dadka inta badani mu'min maaha baa ilaahay leh subxaana wa tacaala sidaa daraaddeed wasadka ama bii'ada environmentka deegaanka noocaas iyo markaad ku nooshahay wuxuu kaaga baahan yahay markaad deegaan muslima deganayd awooddii iyo caqligii iyo lacagtii aad diintaada ku bixin jirtay ka badan inaad ku bixiso waayo waxay yidhaahdaan badda haddaad u dabaalato dhanka mawjaddu u socoto mawjadda ku qaadaysa markaa dabaasha waa fududay haddaad laakiin didda tayaar u dabaalato mawjadda haddaad ka hor tagto dee markastoo aad istiraa hore usii socbadi bay kuu soo riixaysaa marka xoog badan baad u baahan tahay inaad maxay mawjadda aad ka hortegi kartid oo xagga kale aad u dabaalan kartid waxaa la mida markaa dhulka mushkilaadku ku badan yahay kuma noolaan kartid haddaanad xoog iyo caqli badan iyo tamar badan iyo adduun badan gelin diintaada waad fasahaadaysa halka laga yaabo markaad waddankaagii joogtay in wax waliba fududaayeen maalan tusaalaan ku siin waddankaaga markaad joogto waxaa laga yaabaa macsidu inay adagtay ninku inuu zinaystaa inuu dhib kala kulmayo dadkaad ku dhex ceeboobe waxaan samee kan samee halkan ka baxal laakiin halkan markaad joogto waxaa laga yaabaa click on your telephone inuu kaa xigo inaad 4 number oo telefoonkaaga garaacdo inay kaa xigtaaba suurtagala waxaa laga yaabaa xaggaa markaad joogtay daacadu inay fududayd meel walba masaajid baa ku yaal meel walba jamac baad ka helaysay meel walba meel lagu weysaystaa baad ka helaysay markaad gurigaa ka baxaysa maanta xaggaan ku tukadaa kamaad fakeri jirin kuguma jirin waxa la xisaabiyo waayo meel kastoo salaada kugu qabsatay waad helaysay qaabaad u tukanto halkanse waxaad u baahan tahay meelaad ku tukantaba heli maysa saa daraaddeed markaad guriga ka baxaysa waa inaad xisaabisaa war maanta intaasoo saacadood baad maqnaanaysaaye intaasoo salaadood baa kuu soo gelaysay xaggaad ku tukan doontaa qorshahay kugu jirtaa si awgeed xaggeennii markaad joogtay in la cibaadaystaa way fududay in macaasi la sameeyaana way adkayd halkan markaad joogtose in la cibaadaystaa adag in macaasida la sameeyaa fudud xumaa la sameeyaa fudud marka inaad cibaado samaysaana juhdi badan iyo fakar badan iyo hanti badan iyo xoog buu kaaga baahan yahay macaasida inaad ka tagtaana go-aan adag iyo adkaysi buu kaaga baahan yahay haddii kale waxaad noqonaysaa kuwa uu nebigu ka warramayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi islaamnimadu qariib bay ku bilaabantay qariibka maxaa looga jeedaa dhul gaaleed buu ka bilaabmay islaamku markii dhul gaaleed bay ahayd madiinana dhul gaaleed bay ahayd nebiga iyo saxaabadii koowaad dhul gaaleed bay joogeen laakiin waxay ahayd dad dadaalayoo rabay dadkan inay beddelaan dhul gaaleed ha joogaane markay xoog ku bixiyeen waxay ku guulaysteen inay isbeddel sameeyaan inay dadkii islaamiyaan oo makiyo madiina ay noqdaan dhul muslim markaa nebigu wuxuu leeyahy islaamnimadu qurba qariibnimay ku bilaabantay mar dambena qariibnimadaa ku dhici doonta buu nebigu leeyahy waxa wanaag iyo khayrku uu sugnaaday kuwa qurabada dhabta a noqda buu nebigu u tilmaamayaa oo waa kuwee baa la yidhi kuwa qariibka noqonaya waa dad yar laakiin saalixiina buu nebigu yidhi oo ku dhex nool dad badan oo aan saalixiin ahayn yacni waa dad yar oo iyagu wanaagsan oo wanaajinaya dadka badani wixii ay fasahaadiyeen ayuha alaxiba qofka muslimka ee muqtaribkaa marka qofka muslimka ee dhulkan jooga tale aada u badan buu u baahan yahay taladaasi laba mid un weynay noqotaa mid saddexaad ma leh inaad xooggaaga iyo xoolahaaga iyo caqligaaga iyo tamartaadaba intay isu geyseen diintan ay xejisan kartaan badiilku hadday taasi dhici kari weydo waa inaa meesha ka timaadeen ku noqotaan taasunba bedel noqon kara
waayo kufrigu iyo macsidu marnaba badiil ma noqdaan. tajaarib horo taariikhiya ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamay reer banu israa'iil. ilaahay wuxuu leeyahy waqatacnaahum fi lardi umama, waanu googoynay oo dhulkaanu ku googoynay baa ilahay yidhi oo dadkaanu ku kala daray, ummadaa laga dhigay. reer banu israa'iil taariikhdooda markaad eegto dunida meel aanay deganayni way yartay. waddan walba jaaliyadii reer banu israa'iil aa joogtay yahuuda. ilaahay wuxuu yidhi haddana minhum الصaalixuun wa minhum duuna dalik. waxaa kaloo ka mida buu yidhaahay leeyay dadka alla googooyey wakhtigaasi dad wanaagsan oo saalixa iyo kuwo xun baa ka mid ah. wabalownahum biاlxasanaati wasayi'aati lacallahum yarjicuun. dhibaatooyinka iyo wanaagyadaba waa ku imtixaanay baa ilaahay leeyay iyadoo la rabo inay soo noqdaan. haddaba reer banu israa'iilkii hore maxaa ka dambeeyey? ilaahay wuxuu yidhi fakhalafa min bacdihim khalfun. kuwii hore kuwaa dhaxlay oo ka dambeeyey. kuwani maxay ku caanbaxeen dambe? wariثu lkitaaba baa ilaahay yidhi. kitaabka horta way dhaxleen. nolosha sideedaba waxa dhaxalka lagu helaa inta badan dadka si fudud buu uga lumaa. waxa laakiin dhididka iyo xoogga lagu helaa dadka kama lumo. saxaabadii diintan way u dhinteen, naf iyo maal bay siisteen, dhulkoodii bay siisteen, markaa dhukdhuk ugamay tegaynin, qiimay ku joogtay. dadka laakiin aabayaashoodun ka dhaxlay ee uun saarkay isagoo muslima, dad muslima iskala jooga, qiimo kuma fadhida agtiisa. xataa xoolaha bay yidhaahdaan xoolahaad shaqaysatee dhididay si fudud uma beerdaraysid, waxaad ilaalinaysaa xejinaysa. laakiin wixii adoogaa ka dhintay xoolihii odaygood ka tegey adee qiimo kuguma fadhido. walidaalika inta badan xoolaha laga dhinto dadka looga taga in yar bay kaga soo hoydaanba. oday baa loodhan bilyaneer waa ka buu ahaa, shanu dhalay ubaa qaybsadano midba si u gubayo faqriga u baxaan marka dambeeyo waxla-aan ubaysarka waayo xoole aanay shaqaynino ku dhididino xoog iyo caqlitoona ka gelin. ilaahay wuxuu leeyahy kuwa kani waxay dhaxleen baa ilaahay leeyahy kitaab, dabeetana yaakuduuna carada hada aladna. kan baa ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala dhow, caradka dhow bay qaadanaya, adduunyay siisteen. markaasaa weliba waxay odhanayaan baa ilaahay yidhi sayukfaru lana in sha allah, ilaahay baa noo dembi dhaaf. ma aha danbuu ku dhacayo intuu ka toobadkeeno ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya, ee hadday mar kale haddana jaaniskii soo maro waa sidii un baa ilaahay leeyahy. haddana wixii bay samaynayaan, waxay leeyihin ilaahay baa noo dembi dhaafi. kuwa kan baa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya alam yuukhad calayhim miithaaqu lkitaab. waa nimankani nimankii ilaahay ballanka uu ka qaaday miyaanay ahayn inaanay anlaa yaquulu cala allahi ila alxaqa wadarasuu maa fiihi wadaara alaakhiratu khayru liladiina yattaquun falaa tacqiluun. inaanay ilaahay been ka sheegin ee xaqun inay sheegaan, kitaabkaana dhab u daraaseeyaan, miyaan sidaa laga qaadin? aayadda dambea ilaahay leeyay waladiina yumasikuuna kuwa kitaabka qabsanaya oo salaada oogaya kuwa ajarkooda lumin maaya baa ilaahay leeyay. meel qurba-a marka la yimaado jiilka koowaad, jiilku waa generation koowaad, faca koowaad wuxuu yeelay inta badan natiijada dambe ku xidhnaata. faca koowaad culaysku wuu ku adagi, dhibtuna way ku badataa. hadday kooxdaa koowaad koox ragga noqoto oo culayskaasi xambaari kara oo midnimadooda ilaashan kara oo diintooda wadan kara, da-yartooda dambe waddaday u jeexi karaan. alislaamu bada'a gariiban kaasay noqon karaan. kuwa ilaahay leeyay walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi lakaana khayran lahum wa ashadda tahbiita. hadday samayn lahaayeen baa ilaahay leeyay waxa lagu wacdinayo saasaa u khayr badnaan lahayd, xaqa inay ku sugmaanna u fiicnaan lahayd baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala. laakiin jiilkaa hore hadday waxa xambaari kari waayaan kuwa dambana way lumaan. qolada sociologigu waxay yidhaahdaan 3 generation bay dadku ku tirtirmaan bay yidhaahdaan. da-dan kuway dhaleen,
kuwa kale ay sii dhaleen wantaha alamr bay dhaha wixii ka dambeeya bulshada meeshay ka mid noqdaan maalan muslimiin ayaa dagaalkii koowaada dunida qaxay shaam dhulkaa loo yaqaano suuriya lebnaan dhulkaasay ka qaxeen iyagoo baasaboorro turkiya sito dowlad cuhmaaniya ka tirsan waxay u qaxeen latin america way degeen xoolo badan bay shaqaysteen wayaba latin america ragga ugu caansan ugu lacag badan leh waa dhashoodii wax ka mid ah madaxda latin america soo martay rag badan oo ka mid oo madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaareyaal noqday waa kuwa dhashoodii laakiin waa iyagoo gaala ah way milmeen odayadii hore diin may aqoonin dunidu saana iminka isugu furantay isuguma furayn tv iyo raadiyo iyo wax ka daba hadlay toona ma jirin culama iyo cid ka daba tagtay toona ma jirin niman iska odayaalo dee beerahooda iska haystay oo waxa ka bayan oo xaggaa tegay xoogsada way garteen waa xoogsadeen dhaqaalay sameeyeen kambaniyay samaysteen waa xoogsadeen laakiin waa baaba-een waa diin beeleen maalin dhexdaasa maraykankan california waxaa laysoo sawirayey muslimiintii hore meesha tagtay masaajid weyn oo ay dhisteen oo masaajidnimo oo kaabadihii le wax walba leh oo dabeetana muddo markii uu socday dhashii yaryarayd ee dambe ay iibiyeen masaajidkii oo markaa hadda baarkening oo kaabadii waaweynaa dhexdooda gawaadhida la dhigo qolaa intay ka iibsatay u bedeshay maxay baarkening ka dhigatay waxaasi maxay ku dhacayaan waxa weeyaan jiilkii hore meesha yimi ayaan iyana aqoon diimeed lahayn dadaal la samaynin ama waa inaad adu wax garanayso dadka ururinaysay ama waa inaad caqligaaga iyo xoolahaaga gelinaysay si dadkaaga mustaqbalkooda u sugnaado haddaad iska hawl yaraysato adiga kaa dashay nusoo nus buu iska noqon kuu sii dhalay muxuu noqonayaa 10% kaa saddexaad uu sii dhalay markaa dee waa waxba oo dadka meesha degan buu ka mid yihi saddexaad kaad imanka dhashay baad ka shakisantay oo leedahay wallaahi ma qurux badna kuu sii dhalay labada halkan ku koray waxay sii dhaleen waxay kale sii dhaleen wax la-aan bay soo baxaysaa idan shantii shay waa laabud inaad samaysaan ka koowaad inaad adigu diintaada barato caqiidadaada barato cibaado fiican la timaadid akhlaaq wanaagsan ku dhaqantid ilaahay nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadii markii la dirayey waxaa lagu diray koowaad inay cibaadada horta laazimaan yaa ayuha almuzamilu qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi waratil ilqur'aana tartiila bay kan isduuduubayow baa ilaahay yidhi kan isdadayow habeenka intiisa badan kac oo cibaadayso oo cibaadada dhab u bara baa la leeyahy waxaa la faray dadka kale ay la dhaqmayaanna inay akhlaaq fiican kula dhaqmaan inay been sheegaan maaha inay tuugo sameeyaan maaha inay kan sameeyaan maaha waa inay la dhaqmaan dadkan kale oo ay diinta jeclaysiiyaan sidaa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii uu dhulka gaalada u diray inay diinta faafiyaan matalan yaman oo kale buu usoo diray wuxuu ku lahaa maxay itaqi illaaha xayثuma kunt waatbic alxasanata sayi'ata tamxuha wakhaaliqi innaasa bikhuluqin xasan meel kastoo aada joogto dunida ilaahay ka cabso haddii xuma kaa dhacaanna sama ka dabagee oo toobad iyo cibaado ka dabagee iyagaa tirtirayee dadkana kula dhaqan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam akhlaaq fiican ayuha alaxiba haddaanad intan samayn karayn inaynu sheegayno inaad badda isku riddo maaha ka warran ninka idhahaa baddaa waan iska jeexayaa un dabaashana ma aqaano waa ninun dee raba inuu naftiisa halaago ilaahayna wuxuu leey walaa tulquu biaydiikum ila tahluka
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا بنبغ التلمامي أيها الأحبة أدو نفط هذا يناد دستو قفهان قيس كاغنا يناد دستو وأدري أنت عرورتني يرير كان يدومر كان آخرين هذه كويديني هذا ما يشبه صحراء اللي كويدين أيوه دين تودا كو أنت أم بريس مصيص اللي كويدين إنه مرة إنه أنا رير كوا اللي كويديني حاجة بريس كانوا كفكرنا إن تقولوا كريسية ونص يسيا كان وحكم مهم سن دين تودا اللي كويديني يعني إن مركو هو الدين تودا قاعد يسون وحوق يحول أبوكو بحسد نبتة إلى حسته وحكم ده هدي إني وحبرتان مثلا waxa laga yaabaa inaad tiraahdo magaalada joogno sheekha ku yar ee dunida maanta joogta sheekh laba casha ku keeni kartaan haday idinku daragtihiin macallin wuxuu dhiga waa keeni kartaan cid jeebkiina wali waxaad ka fakaraysaa daar u dhis war daartiisa isaga dhisanaya adiga daartaada uma baahna ee wuxuu u baahan yahay inaad isaga dhisto wuxuu u baahan yahay isaga qof diin loo dhaqan loo muslima inaad ka dhigto haddaad adigu intaa u samayso aakhire ilaahay ku weydiin maayo maxaa daara ugaga iman weydi iyo guri ma u dhistay adiga aakhire lagu weydiin maayo adiga waxa lagu weydiinayaa waa maxay inaad isaga qof ka dhigtid saa daraaddeed bulsho intan leeg iskuul waa dhisan kartaa sheekh waa kaysan kartaa macallin waa kaysan kartaa qof diinta u dhiga waa kaysan wax kasta waa samaysan karaa laakiin maxaa lagu samaysanayaa bijuhdikum jeebkiina awoodiina xooggiina caqligiina dadnimadiina waa laga yaabaa inuu idinla joogo laakiin dee sidaa u kalahdaa buu u kalahaya isaga ha kalihina wax dhigdhe adiga xaggaaga ha u soo kalaho waxaa la sheegaya meeshan jaahiliya 10 kun oo qof gaadhay ma 10 kun oo qof baan wax samaysan karin 10 kun oo qof waxay doonaan way samayn karayaan laakiin waa goorma waa markay dareensan yihiin inay baahidan qabaan waa markay dareensan yihiin inay tahay awlawiyaadkooda waxooda ugu horeeya aakhire la weydiinayo waa marka ay dareensan yihiin ka saddexaad inay isku xidhan yihiin dadka muslimiinta meel wada deganaada waa inay isku xidhnaadaan hadday masaajid tahay hadday madaaris tahay hadday iskuulla tahay midnima wax lagu noqdaa haddaad qaybsanaan doonayso quruxda ay leedahay waddankeennii ka arag inta reerkiina haddaad la baxdo intii reerkiina kaa badnayd ba cidlay fadhida intay gaar u baxeen marka intani waa reer hebel iyo intani waa gobol hebel iyo intani halkay ka timi kaynu ka nimi bay qurxin lahayd hadday macno samaynayso kaynu ka nimi bay qurxin lahayd hadday macno samaynayso kuwaasi waaba laga yaabaa inay dhul kale fog deganaayeen wax inagu tuulada yar baynu wada deganay waxbaynu wada baahanay ilmaheenu waa wada lumaya la odhan maayo ilmaha reer hebel baa lumay ilmaha reer hebel la lumi maayo cid odhan mayso dhibaatadu wayna wada haysataa bulshada waynu la wada noolnay waxaa wax ku noqon kartaane markaad naftaada iyo qoyskaaga ka fakartaa waa inaad tacaawunto dadka muslimiinta kale Soomaaliya ku dhamay xataa muslimka kale ina tacaawuntaan nabiguna wuxuu leeyahay al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan qofka mu'minka ay qofka kale mu'minka sida dhismaho kale u yihi waxa la inoo tilmaamay wa tacaawanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la tacaawanu 'ala al-ithmi wal-'udwan ilaahay wuxuu ina leeyahay war wixii sama iyo khayr isku gargaarsada midna ogsoonow bini aadam kaloo dhan wax walba kula midi ma jiro Soomaaligu wuxuu jecel yahay inta aad wax kasta isku ra'yiga ka tiinina wada socon kartaa wax yar haddaa isku khilaaftaan wayna kala kaxeen bini aadam saasi dunida kuma noola dadku waa kala aara waa kala aragti waa kala aqoon waa kala waxbarasho wax badan oo differences u dhaxeeya laakiin wuxuu u baahan yahay inuu isu dul qaato inuu ishoga tusiyo inuu saa aadamuhu u dhaqmaan inuu u dhaqmo mushkilaadkooda inuu xallili karo kaasi u baahan yahay marka waxyaabaha qaarkood inagoo kuba kala gedisan xataa aragtida waddankii inagoo ku kala gedisan baynu tan isku baahi karnay aynu tan wax ku wada lahaan karnaa
وكافراد مشناده dadkan idinla nool waa inaad diinta gaadhsiisaan siiba tawxiidka ilaahay inuu keliya inaad dadka gaadhsiisaan nabiyullaahi moxamed suuraddii labaad ama saddexaad ku soo degtaa maxay ahayd inta 10 aayadood ama 5 aayadood hore ku soo degeen ayaa waxa ku soo degay yaa ayuhal mudaththir qum faandir yaa ayuhal mudaththir markay soo degaysay intee buu waxyi loo keenay waxya لكن إلهي يقول قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر كع ودق بالي لو دتك ودق قضبك قدام بيا وقفك مسلم كي ولا ليس مسلم كي دون ده كل نار دبات تدسوق عندك الجسد الواحد ودرين مسلمين هذي سهيل الهايين وحمانت غزك جرا ما جرين ma dhacdeen marnaba iyagoon waxba cidna u geysanin ayaa cabsida laga qabaa 2 bilyan oo wada socday keeni lahayd inaan lagu soo dhiiranayn laakiin markii inba meel lagu xidhay inba xariijin loo ooday inba la yidhi reer hebel baatiin ayaa maalinba reer hebelada ka mida la cunay marka qadaayaadka ummadana إنا مهتمين كنتين أيها الأحبة أنت وحكا صهرة أنت وحكا صهرة هدايدا سمين كريني لبدا مشكلة دي حقا صافضو دي تاواجه هدان حلو هلين المشكلة ديميد إن المشكلة النقالة يا من حمد واجه دابا كفضو داخرية دوبا بني آدمku meel ismuuthi ma jirto nolosha meel walba dhibi waa jirtaa laakiin dhib kasta rag bay u baahan tahay marka haddaad tan qaban kari weydo diin ahaan waxa kale kuu banaanay waxa weeye inaad reerihiinni qabato iyo meesha aad ka timi waa laga yaabaa in busaaradii kaa hor timaado waa laga yaabaa in dhaqaale xumo kugu timaado waa laga yaabaa colaada inay kugu yimaadaan laakiin taasaa ka fudud inaad daba goodo halkan aad sii joogto halkaa wuxuunbaa dadka kuu soo hadhay hadaad shan wadato xataa 2 lagaa dila 3 baa kuu soo hadhay laakiin halkan waxba soo hadhi maayaan halkan dad kale ayaad biirinaysaa ummad kale aad biirinaysaa ilaahayna qur-aanka wuxuu ku leeyahay ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim kuwa malaa'igtu oofsata baa ilaahay yidhi iyagoo naftoodii dulminayay قالوا فيما كنتم ورمحكوا سجنيدين بالله قالوا كنا مستضعفين بينها إلى وانا لقى حق بطل وحنو كمده عندك أقليات هي لقى حق بطل كنا مستضعفين في الأرض فهلقوا إلى هذا قوة قالوا ألم تكن أرض الله واسعة ولله يقول كسمين بالله هذه هلكا كوكو أوضي فتهاجروا فيها إله يقول كسمو بالله إما مالك قبطان بالله أيها الأحبة warkaygu wuxuu ku kooban yahay 2 kelmadood kelmadda koowaad waxa weeyaan inaynu dareenno haddaynu diin weyno inaan waxba inoo hadhin hadday diintu lunto inaan waxba kuu soo hadhin qiimo inaanay samaynayn dhaqaale iyo guri cad iyo waxa kaloo dhami inaanu qiimo samaynayn hadday diin la-aani dhacayso ka labaadna waxa weeyaan haddaynu diinta saa u garanno wixii aynu ku xijin lahayn markaynu halkan joogno inaad samaysaan haddaad taas samayn kari weydaan dee inaad iska tagtaan waad samayn kartaan haddaad mid tihiin oo isku xidhan tihiin oo u fakeraysaan oo caqligaasi uu jiro waa la samayn karaa nebi maxamed iyo saxaabadiisiiba dhul gaaleed bay ka samaysteen markay dhul gaaleed bay ahayd iyagaa u bedelay dhul islaam madiine dhul gaaleed bay ahayd iyagaa u bedelay dhul islaam way ka sameeyeen ciddii ka samayn kari weydana ka hijrooda baa la yidhi xalku waa kaasume ciddii ka samayn kari weyday ka hijrooda laakiin inaga dhibta inay haysataa waxa weeye iskuma baynan dayin waxaynu aragnaa sidii aynu soomaaliya ugu nooleen inaynu isaga noolaano wax waliba iska hagaagayaan oo insha allah ilaahay baa hagaajin doona ilaahay inaanu toobad keenno isku xidhnaanteena iyo dadaalkeennana aan badinno diinteennuna qiimaha inoo samayso sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam والحمد لله رب العالمين